لصوحي ترتلو باقي برشي غير دوما بلابو سركعة صعب 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 بدن هالوقتو صعب 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 بدن هالوقتو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحي ترتلو باقي برشي غير دوما يا ابو سركعة صعب 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 بدن هالوقتو صعب 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 بدن هالوقتو هو بريل الله لما بشا عالم كله نقد قوشة بكسدا وهلا بلا سري talagalnay anagoo matalayna jaaliyada Soomaaliyeed Hamburg in dhalinyarada Soomaaliyeed Jarmalka ku dhaqan gaar ahaan Hannover iyo waliba Kiel Hamburg oo laba koox ka socota in loo qabto tartan kubadda cagta ah tartankan waxa loogu talagalay in dhalinyaradu ay isdhex galaan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo tartan kan ka weyn oo kulamo badan kooxda iyo waliba mas'uuliyiinta kooxda waa labada koox iyo jaaliyaduba ay isu yimaadaan tartankan waxaan ku xuseynaa ama aan ugu dabaaldegaynaa toddobaadka xurriyadda dalkeena oo 26 Juun ilaa iyo 1 Luulyo oo aan ugu talagalnay waxaan rajaynayaa in ciyaaro wanaagsan aad soo bandhigtaan gudoomiyaha Axmed Soomaali ayaan ku soo wareejinayaa hal iyo laba sidii ugu yiraahdo waxaana tartankan uu noqon doonaa labada koox maanta soo badisay final ay ciyaari doonaan sidoo kale tana Brito laba koox kale ay dheeli doonaan isla koox Hamburg ka dhisan soo dhaweyn doonta koox Kiel ka socota Hannover adaad badisaan guusha la dheeraanina markasta noo imaada Hamburg saaxiibadiina soo dhaweeya ciyaaruhuna waa isdhexgal gudoomiye soo dhaweeya waa mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina koobkan aan maanta qabanayno muhiimadda ama ujeedada koobkan waxa uu yahay number 1 isdhexgal iyo isbarasho dhalinyarada Soomaaliyeed ee Jarmalka gaar ahaan gobolada aan ku casuunay Kiel iyo Hannover magaalooyinka ka kala socda gobolada Mittelay iyo magaalada Hamburg oo iyaduna dhalinyaro laba koox ay matalayeen marka koobka muhiimadiisu waxa weeye in aan ku weyneyno maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed haddaan markaan leenahay maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed waxa weeye laga soo bilaabo 26 Juun 27 Juun ilaa 1 July saa la socotaan meel walba oo Soomaali ay degan tahay xafladahan way ka socdaan annagu waxaan soo qabanay munaasabad ballaaran oo aan qabanay iyo sidoo kale tartankan kubadda cagta ah oo aan dhalinyaradan Soomaaliyeed ee ku kalnoo saddexda gobol Jarmal ka tirsan aan u qabanay muhiimadan waxa weeye in iyagu ay isbartaan oo ay isu soo dhawaadaan sidoo kale wacyigelin ay uga noqoto maaragtay wadooyinka xunxun saan ognahay sportsku waa isdhexgal iyo isbarasho waxaana fursad u siinayaa dhalinyarada in ay kaga waantoobaan ama ay kaga mashquulaan waxyaabo kale oo xunxun oo ay sameyn lahaayeen marka taas ha keentay in maanta aan qabanno xafladan waxaan sidoo kale aan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka ay ka joogaan hambaliyo waxaan ku hambaliyaynaynaa maalmaha xurriyadda 26 Juun waxay ahayd maalintii ugu horeysay ciid Soomaaliyeed oo xor ah maalintii ugu horeysay oo ciid Soomaaliyeed oo xor ah calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago 27 Juunna walaalaha Jabuuti hil walaal waa markii ay ka xoroobeen gumeystaha Faransiiska sanadii 1977 27 Juun kowda July ama Luulyana waa maalintii ay midoobeen gobolada waqooyi oo iyagu 26ka soo qaatay xurriyadooda oo ay u keeneen midnimadaasi iyo midowgaasi walaalaha koonfureed oo iyaguna ka xoroobay gumeystii Talyaaniga kowdii Luulyo sidoo kalena dhacay midowgii labada dhinac ee waqooyiga koonfurta Soomaaliya waxay noo tahay guul dhalinyarada Soomaaliyeed tanna waxaan rajaynayaa inay noqoto mid sii socota oo dhalinyarada la isku soo dhaweeyo la isku keeno ciyaaraha noocan waa sii wadi doonaa waxa weeye qof walbana waxaan leeyahay مسؤولية إن عكاجة أدنتها كات كيسو هرا الله سبحانه إن شاء الله قول بين الرجال دمان سعبك
sacab 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 badan haloo tumo sacab 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 badan haloo tumo bartuwaa garoon buucadii ciyaaraha barbaartii la soo xuray tartan loogu baaqayay bulshaya hayriyo dumar yaaboo sare kaca sacab 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 badan haloo tumo sacab 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 badan haloo tumo kuwa beri laloo lama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloo lama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare bartuwaa garoon buucadii ciyaaraha barbaartii la soo xuray tartan loogu baaqayay bulshaya hayriyo dumar bilaabo sare kaca sacab 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 badan haloo tumo sacab 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 badan haloo tumo jigiyo karaamadoyay noqon barkumataan muqiyo xanaaqadii iyo ciyaarta kaa burin jigiyo karaamadoyay diyaar waa taasoo ma waxaa meesha noogu soo gabagaboobay tartankii kubadda cagta ahayd isdhexgalka iyo isbarashada sidoo kale aan ugu dabaaldegayna maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed 26 Juun 27 Juun oo Djibouti ah walaalaha Djibouti hiil walaal iyo 1 Luulyo oo Britola ah oo waxa weeye munaasabadii aan ugu dabaaldegayna gaar ahaan qaybtii sportska aan soo gabagabowday shalay waxa wada ciyaaray Kiel iyo Hamburg aan iraahday shalay waxa wada ciyaaray Hanover iyo Hamburg maantana waxa wada ciyaaray Kiel iyo Hamburg ciyaarta shalay waxay ku soo dhamaatay 3-1 oo ay guush ku raacday Hamburg tii maantana waxay ku soo dhamaatay 5-2 oo ay guush ku raacday kooxda Hamburg taasina waxay muujinaysaa ciyaartooyda Hamburg inay horumar fiican ka sameeyeen dhanka sportska waxa weeye maalinba guusha dhinacay jirtaa maalin Kiel badinaysa maalin Hamburg badinaysa maalin Hanover badinaysa maalin Hamburg iyo gobolada ka marka waa wax wanaagsan waana isdhexgal marka waxaan jeclaan lahaa inaan kelmad siiyo ciyaartooyda dhanka Kiel ka timid dareenkooda iyo munaasabadan maalmaha xurriyadda loogu dabaaldegay iyaguna say u arkaan bal kelmadoodan siinaa waxaan ku soo dhaweyn lahaa Yaxye kabtanka kooxda bismillaah aada u mahadsantihiin waanu ku faraxsannaa haddaan reer Kielnahay inaan kasoo qayb galno munaasabadan maantana waa guuldaraysanay insha allah waxaan rajaynaynaa kulamada soo socdo inaan guulaysano hadduu ilaahay nafta nagu simo soo dhoweyntiina iyo munaasabadaba aada uga mahadnaqaa wabilaahi towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim sidaad ii taqaanaan magacaygu waa Muniir waxaan maanta halkan dhalinyarada aan kula talin lahaa isbarashada meel kastood ka timaadeen waxa ay ka qaalisan tahay siyaasadda maanta dhalinyaradu isku baranayaan dee dhalinyaradana waxay nooga yimaadeen meel waxay nooga yimaadeen kilomitro badan noo jirtay ilaa 100 wax ka badan oo waa reer Hanover aad baan u soo dhaweynaynaa gobolada kalena saa ay maanta inooga arkeen iyagu unba insha Allah u soo dhaweyn doonaa aad baan u mahadsantihiin dhaliyadiina reer Hamburg waana idin salaamaya insha Allah alamin waa mahadsantihiin horta soo dhaweyntaana soo dhaweyseen aniga waxaan matalayaa kooxda Hanover macalinkoodii baan ahay maanta waxaan ku arkay meesha meel oo maaragtay Soomaali iska jeceshahay oo maaragtay soo dhaweynayso marka waa mahadsantihiin kubadduna waa maaragtay isdhexgalka bulshada marka waa mahadsantihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inay kubad maaragtay fiican ka dhacdo galabta waana mahadsantihiin aniga intaas baan ka soo jeedi lahaa meesha waa mahadsantihiin
waa mahadsantihiin dhammaan mayahay fiirinaya dhalinyarada ka soo qayb galay iyo dhalinyarada kale isla ciyaareen muhiimaddu waa in la isdhex galo maaragta la ciyaaro maaha dadka gadaal ka qeylina inay ka qeyliyaan maaha respectaa loo baahan yahay kowdhe marka waxaan ii rajaynayaa markiina waa sarki doontiin guul waana mahadsantihiin wanaagga wada ciyaarteen amiin cumar uu mahadsan yahay markana waxaan jeclaan lahaa inaan kelmadooda siiyo kooxda galabta halkan guusha ku gaadhay hamburg matalaysay kabtankan kusoo dhaweynayaa kabtan xuseen asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waan wada salaamay marka hore ilaahay baa mahad iskale inoo suuro geliyey maajkan quruxda badan leh iyo sida quruxda badan leh inuu wada dheelay mar labaad waxaan mahad u celinayaa axmed soomaali iyo rifriga mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa kooxdeenna martida noo ay reekiil oo dhammaantood ciyaartooyadeedii wada ah mar afraadka waxaan u mahad celinayaa tiimkayga iyo taageerihiisa insha allah waxaan leeyahay maaj qurux badan buu ahaa aad iyo aad u wanaagsan kubadduna waa isdhexgalun iyo caafimaad in iska dhididsiino oo saaxiibadeenna kale soomaalinimo isku aragno waanad ku mahadsantihiin baan leeyahay saaxiibayaal maajkun maaj qurux badan buu ahaa kubadduna kubad qurux badan bayd kubadda muhiimaddeeduna waa intaa aad baan nii salaamayaa waana mar labaad iyo mar saddexaadba thank you baan leeyahay kabtan xuseen waa mahadsan yahay markan waxaan jeclaan lahaa kelmad inaan halkan ka siino garsoorihii ama rifriigii ciyaarta galabta hayay xusaam oo isaguna runtii muujiyey dulqaad badan xusaam soo dhowow fadal xusaam wuxuu ka yimid dalka masar waana walaal afrikaan carbeed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ده كان شرف ليا إن أنا أحكم الماتش دوت ما بين فريقين أهل الصومال، وأعتقد حاجة زي كده المفروض تجمع الفرق وبعضيها والناس تبقى في صداقة أكتر وحاجات أكتر. عجبتني جدا المنافسة القوية ما بين الفريقين، الاتنين كان فيهم حماس قوي جدا وكانوا بيسعوا إن هم يكسبوا ويحققوا أكبر فرص ممكنة. واعتقد مناسبات زي كده بتقرب الفرق من بعضها وتقرب اللعيبه من بعضها، وده الهدف الرئيسي للانشطه ديت وللحاجات ديت. وكمان مره كان شرف ليا ان انا احكم ماتش زي دوت، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا. حسام waa mahadsan tahay. markan waxaan jeclaan lahayn inaan guddoonsiino koobka labada kooxoodba waxaan ugu talagalnay jaa'izo ama koob. koobka weyn waxa weeye koob weyn baan kaalinta koowaad ugu talagalnay oo aan kii champion leagueska aan ka dhicin. marka champion leagueskan waxa weeye kooxdan Hamburg iskama haysan doonto, kiil gurigeeda loogu tagi doonaa. waxa weeye koobkan meesha waa la geyn doonaa. marka haddii kaale idinka cishto oo dib idinkaga cishtana waa arki doontaan, haddii aad sii haysataan oo mar kale ka soo badisaan waa arki doontaan. kiilna waxaan leeyahay sportsku waa isdhexgal iyo horumar. waan ku mahadsantihiin sida wanaagsan koobka aad uga soo qayb gasheen iyo sida aad ma aragtay mar walba aad ugu xirantihiin dhanka sportska iyo horumarka. waxa weeye hawsha halkaa laga sii wado. waxa la yiri howlka madaal weli waa hoogadiis insha Allah. guul waan rajaynaynaa, koobkan bixinaynaa. marka ugu horeysa waxaan u yeeri lahaa kabtanka kooxda kiil matalaysay ama ka socotay ee Soomaaliyeed Yaxye Mr. Yaxye kabtanka soo dhow si aan koobka u guddoonsiino. waa la soo geli kartaan idinkana si aad koobka ula qaadaan. Amiin Cumar guddoonsiin doona, guddoomiyaha dhalinyarada ahna sportska. waayahay halkaas waxaa noogu dhammaaday jaa'isadii aan ugu talagalnay reer kiil. walaalaheen waxaan leenahay soo dhowaada mar labaad mar saddexaad. sharaf ay noo tahay kubaddii wanaagsaneed iyo xirfaddii iyo farsamadii aad soo bandhigteenna waan idinkaga mahad celinayna insha Allah. markaan waxaan jeclaan lahaa kooxdii iyadu hanatay koobka maanta inaan halkaa uga yeero kabtankeeda iyo ciyaartooydaba si uu Amiin u guddoonsiiyo mar kale. waxaan jeclaan lahaase koobka in kor loo qaado la ruxo, jambiyonka inuusan ka dhicin. soo dhowaada kooxda Hamburg oo ku guuleysatay qaybta koowaad. koobkan waxaan dhignaa kabitaanka Xuseen Tolman ku soo dhawaaw. ku soo dhawaad maxaa wax ka oran lahayd؟ والله شعوبتي هذه أود كأحسنتها ما بدني waxaan horta marka hore saxan baliyo madina dheertaan ka badinay hadda ma digta marka
marka hore ma xanaaqsanin aw shiina difaaca qaranka shiino waxaan rabnaa ku wareysano say maanta ciyaartu u arkaysa wallahi horta ciyaartu ciyaar wanaagsan bay ahayd dhalinyartuna si wacan bay u ciyaareen waliba dee aamino wadno gudoomiye baa tahay waxaan jeclaa inaan coach ka dhigano laakiin sharmaa kan waa ku mahadsan yahay waa salaamaya dhalinyarta kulligood jaaliyadda waa salaamaya gudoomiye axmed waan salaamaya